وحنون أنت اللي أركي أدونك وحنونك وقدرن وحوي متقنا إسبريتكيس أما في تانكيس وأدو صرية مركب هانتي إن وحوي متقنا تحدي بدن عن موجنا أنا ودي نقولانو متقنا تلوينك وسعر عافماتك يقولينك عافماتك يدقاتير تو أي نصينا يعني إن قاضنا حنون كان هانتي دور قف ضد بدن بولو درينيا وحودان يهي ضدك واوين واو درين يهي ضدك dhiikar kale waa u daran yahay dadka sonkorta la waa u daran yahay waayo dadkaasi waxa la og yahay difaaciga jirku waa liitaa qof oo difaaciisu ka liitana xanuunkan waa u halis badan yahay waxa jira dadka qaar aan qaadi karin wararka beenta markay maqlaan ka sii naxaya ama dad qaar waxa jira xanuun qaba oo xanuuno maskaxiyana xanuunsanaya oo markay wax carqalad nacaan waxa kale oo ka cusub dadka saxaafadana wararka been abuurkay dadka inta badan la soo sheegayo qof baacaynkaasa ma idinku ma ogidin laakiin wuxuu ku kordhinayaa xanuun buu bulshada ku kordhinaya qofkan uu ku kordhinaya waxa weeyaan adiga walaalka ama hooyada ama cid kale ma aha cid kale waxa wanaaga in la sheego imika waxa jira dadka qaar xanuunkan dad badan oo ka bogsada jira lagama sheekeeyo inaga dad badan oo recovery ka sameeya jira laakiin waxaan ka hadlaynaa inta badan dhibkaasina waxay noo saameynaysaa maskaxiyan iyo psychological ahaan way noo saameynaysaa waxa loo baahan yahay inaad farahaaga aad inta badan aad u dhowrto ama afka taabsiiso inaad taabsiiso ka ilaaliso sanka indhaha wajiga inaad taabsiiso waa si fudud buu ku gali karaa fayrasku intaasba meelaha public ah markaad tagayso aad mask wadato iyo baasha gacanta ku nadiifinaysa kadib baasha waxay ka dilaysaa jermiska ka dilaysaa taa wax sameeysaa saasad maraysaa taas ku dhex gelinaysaa gacmaha nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ninu yimi markaasuu wuxuu yiri rasuulka ilaahayow ma tala saarsadaa ilaahay oo hashayda ma dabraa mase dabarkan ka furaa iyo xarigo waa sii daayaa oo rabbi baan u daayaa wuxuu yiri dabar oo sababtii la imo macnaha rabbina tala saarso wixii adduun iyo aakhiro ku dhibaya sidaad uga fogaan lahayd inaad rabbi u tala saarsato asbaabtana aad la timaadid baa tawakkul yiraahdo waxaynu u baahanahay marka inaynu sidaa u fahanno aynan isdhigan الله